saraakiisha ammaanka dalka Masar ayaa lagu eedeeyay inay dileen madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Mursi. qaar kamid ah qaraabada iyo ehelka madaxweynaha ayaa sheegay in booliiska ay ku guuldareysteen inay gurmad degdeg ah u fidiyaan markii uu madaxweynaha taagnada ka dhacay xilli ay socotay dhageysiga dacwadiisa maxkamadda ku taala magaalada Qaahira, sida uu qoray wargeyska ka soo baxay dalka Ingiriiska The Independent. ciidamada ilaalada xabsiga ayaa lagu eedeeyay inaysan wax dan ah ka gelin hogaamiyihii 67 sano jirka ahaa uu sucsanaa in ka badan 20 daqiiqo, inkastoo qaar kamid ah qareenadii maxkamadda joogay ay ku baaqeen in loo gurmado. Mursi ayaa waxa uu qabay xanuunka sonkorta, dhiigkarka iyo waliba xanuunka beerka, waxaana loo haystay eedeymo ah inuu taageerayo dowladda shisheeye iyo ururo maleeshiyada. dhanka kale, xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee waddanka Masar ayaa beeniyay eedahaasi, isla markaasna ku andacooday in Maxamed Mursi durbadiiba loo qaaday isbitaal halkaas oo markii dambe uu ku geeriyooday, waxaana la rumaysan yahay inuu u geeriyooday wadna xanuun. qaramada midoobay iyo ururada u dooda xuquuqul insaanka ayaa waxay ku baaqeen baaritaan madax bannaan laga sameeyo sababtii ka dambeysay gaaridii ku timid Mursi iyo xaaladihii ku sugnaa inta uu xabsiga ku jiray. wargeyska ayaa sidoo kale ku waramay in qaar kamid ah qoyska iyo qareenadii u doodaya Maxamed Mursi loo ogolaaday inay tagaan goobta lagu aasayay Mursi, balse aanan loo ogolaan in wax baaritaan dheeraad ah ay ku sameeyaan meydka. Cabdullaahi Al-Haddad oo aabihiis iyo walaalkiis kamid ahaayeen dadkii taagnaa maxkamadda Maxamed Mursi ayaa sheegay in goobjoogayaal ku sugnaa maxkamadda ay u sheegeen in qof uusan wax gurmad ah u fidin markii uu taagnada ka dhacay. waxa uu suuxsanaa in muddo ah ilaa ay ka yimaadaan gaariga gurmadka degdega ah ayaa yimid 30 daqiiqo kadib. dadkii kale ee la xirnaa ayaa qayliyay, waxaana kamid ahaa dadkaas dhaqaatiir. waxay ka codsadeen ciidamada ilaalada xabsiga inay gurmad degdeg ah u fidiyaan madaxweyne Mursi. waxay arintaasi ay ahayd mid loo qasday, ayuu wargeysku The Independent u sheegay Cabdullaahi Al-Haddad. waxa uu sheegay in hadda uu cabsi ka qaba aabihiis oo loo diiday inuu maro qalliin dhanka wadnaha, inkastoo marar badan uu ku dhacay wadna xanuun tan iyo markii la xiray aabihiis Cabdullaahi. qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ayaa wargeyska sidoo kale u sheegay in booliiska aysan wax gurmad degdeg ah aysan u fidin Mursi markii uu suuxay ilaa 20 daqiiqo kadib. Dr. Umar Daraad oo ahaan jiray wasiirka xiriirka caalamiga ee dowladda Mursi ayaa The Independent u sheegay in madaxweyne Mursi looga tagay qolkii uu ku xirnaa muddo nus saac ah isagoo suuxsan, isla markaasna uusan wax daweyn ah uusan helin. ka yar 10 qof ayaa loo ogolaaday inay ka qayb galaan aaska Maxamed Mursi, mana jiraan baaritaano madax bannaan oo lagu sameeyay meydka, ayuu yiri Umar Daraad oo ku sugnaa waddanka Turkiga. dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda Masar wax jawaab ah kama aysan bixinin markii loo bandhigay eedeymahan loo jeediyay dowladda ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee dalka Masar. hay'adda Human Rights Watch waxay ku tilmaantay geerida Mursi masiibo. waxay sidoo kale sheegtay in xubno ka tirsan qoyska Mursi ay u sheegeen inuu la daalaa-dhacayay xanuunka macaanka kadib markii wax dawo aan la siinin. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Maxamed Mursi nin shahiiday, isla markaasna ku eedeeyay dilkiisa hogaamiyaasha ka tirsan waddankaasi. Maxamed Mursi waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadiyadda loogu soo doorto dalkaasi, balse hal sano oo kaliya ayuu hayay talada dalkaasi ka hor inta aysan ciidamada xukunka ka tuurin 3 bishii Juulaay sanadku markuu ahaa 2013.